balse 10 sano ayay ka shaqaynaysay siday u noqon lahayd nin, waxayna martay qaliino kala duwan iyo kala bedelidda dheecaamada dhadiga iyo labka. ugu dambeynna markii uu qaliinada isku sameeyey wuxuu yeeshay xaas, waxayna u sheegtay xaaska uu yeeshay inaysan dhali karin maadaama ilmagaleenka laga saaray. Thomas ayaana go'aansaday inuu asiga uur yeesho iyadoo loo marayo barnaamijka casriga ah ee bacriminta ah laguna magacaabo IVF. Elizabeth Ann Battle 2 mar ayay gashay qolka dhalmada nolosheeda, iyadoo jirta 19 sano ayay dhashay gabar la dhaho Bilbenda sanadka marka uu ahaa 1956. cunugeeda labaadna oo lagu magacaabo Joseph waxay dhashay 1997, waxayna sugaysay cunugeeda labaad inay dhasho muddo 40 sano iyo 185 maalin. ugu dambeynna waxay heshay hadiyadda labaad oo ay sugaysay 40 sano. hooyada tirada ugu badan ee carruur ah dhashay, sida lagu daabacay buugga Guinness ee rikoorada, hooyada carruurta ugu badan dhashay waa mid ka soo jeeda baadiyaha Ruushka, taasoo dhashay 69 qof qarnigii 18aad. hooyada da'da weyn ee Rajo, kadib markii ay sugaysay 40 sano cunugeedii ugu horeeyey, waxay dhashay wiil sanadkii 2008. marka ay cunugeeda ugu horeeyey dhalaysayna waxay jirtay 70 sano. Stacey Harrod, hooyadan dhirirkeedu wuxuu gaaraa mitir kala barkiisa oo keliya, waxaana lagu yidhi haddii aad uur qaaddo waad u dhimanaysaa, laakiin go'aan waxay ku gaartay inay uur qaaddo, ayadoona ugu dambeyn dhashay 2 carruur ah. inta ay uurka lahaydna waxaa ku xirmi jiray naqaska. Omkari Banwar waxaa loo diiwaan geliyey hooyada ugu da'da weyneed ee dhashay mataano, waxayna Omkari dhashay mataanaha iyadoo jirta 70 sano. waxaana xusid mudan ninkeeda Jaran Sen Banwar ee ka dhalay carruurta mataanaha ah inuu jiray asigana 77 sano. Nadia Dennis, hooyadan 2009 ayay qabsatay TV-yada iyo wargeysyada caalamka kadib markii ay dhashay 8 carruur ah oo mataano ah, waxayna midda gaarka ah noqotay in dhammaantood 8 carruur ee mataanaha ah inay wada badbaadeen isla markaana caafimaad qabeen. iyadoo jirta 5 sano oo keliya, waxayna arrintan ay ka dhacday dalka Peru sanadka marka uu ahaa 1939. gabadhan yar waxay aaday isbitaalka iyadoo ay la socdaan labadeeda waalid, maadaama ay dareentay culays badan iyo miisaan ku kordhay jirkeeda. marka ay dhakhtarka la kulantayna wuxuu mooday buro ka mida burooyinka inay ku taalo, laakiin marka uu baaritaan ku sameeyey wuxuu ogaaday inay tahay xaamilo ku jirta bisha 7. bil kadibna waxaa lagu sameeyey qaliin maadaama miskaheedu yaraayeen.